السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا قيبتين سيديدات كورسada aan ku baranayno video editing-ka software-ka CapCut. qaybtan maanta waxaan ku baran doonaa sida loo sameeyo muuqaal sidan oo kale ah. weliga hays oranin haddaad san yeesho maxaa dadku ku oranaya waa nacas baa lagu oran inaad ilaahay agtiisa nacas ka noqoto naar gasho iyo dadka agtooda inaad nacas ka noqoto kee ku roon. si aan u sameeyno muuqaalkan oo kale marka hore waxaan soo gashanaynaa muuqaalada aan rabno inaan ka sameeyno video-ga. waxaan ku dhufanaysaa import kadibna waxaan soo gashanaynaa labadan waxa leedahay open. labadan muuqaal ayaan waxaan soo dhiganaynaa qaybtan timeline-ka ah. marka hore waxaan soo gashanaynaa muuqaalkan kadibna waxaan soo gelinaynaa muuqaalkan sida ku muuqato waa muuqaal vertical ah, kanna waa muuqaal horizontal ah ama full HD oo shaashada la eg sida mobilka oo kale markii la gediyo shaashadiisa, markii la jiifiyo mobilka shaashadiisa oo kale la ekaanaya ama computer ama shaashada caadi markaa ka fiirsanayso. sidee uga dhigi karnaa marka muuqaalka vertical? waxaad taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay ratio kadibna waxaad dooranaysaa 9:16. muuqaalkii wuxuu noqday mid vertical ah balse shaashada lama eka. waxaan sameynaynaa qaybtan scale ee noogu qoran tahay ayaan badinaynaa si uu shaashada ula ekaado. okay, intaa marka aad sameysid waxaan kusoo darsanaynaa muuqaalkan marka hore wuxuu leeyahay vertical, wuxuu la egyahay shaashada. sidee marka u sameyn karnaa muuqaalka colorkiisa, sidee u sixi karnaa? waxaad tegaysaa meesha ay ku qoran tahay adjustment markii aad tagto waxaan sameynaynaa kana wax yar gadaal usoo celinaynaa. okay, kana wax yar hore u dhaqaajinay wax yar oo waxaan ku daraynaa saturation colorka. okay, uma baahan saturation lagu daro midkan. haddii brightness-ka uu kugu yaryahay waa ku darsanaysaa iftiinka, haddii kale si isku dhaaf brightness-kiisa waa okay. contrast xataa uma baahna. waxaad tegaysaa qaybtan highlight wax yar gadaal usoo celi, shadow-gana wax yar dhinaca u wad. okay, black-ska wax yar oo aan badnayn -1 gadaal usoo celi si waxyaabaha madmadowga si fiican ugu muuqdaan. okay, intaa markii aan sameyno wax yar muuqaalka waxaan u sameynaynaa vignette waxa la yiraahdo madow ayaan waxaan kasoo gelinaynaa cornerska geesaha. intaa markii aan sameyno haddii aan doono colorka weli waa sii sixi karnaa, shaatiga oo kale bluegiis oo kale iyo cagaarkan microphone-ka iyo si fiican usoo muujin karnaa. waxaan tegaynaa qaybtan kadibna waxaa ku dhufanaysaa, waxaad dooranaysaa bluega, waxaad badaysaa saturationkiisa. okay, intaa markii aan sameyno colorka kadibna waxaan sameyn doonaa videogan waxaan marinaynaa qaybta kore. markii aan marino waxaan hore usoo baranay waxa la yiraahdo blending option ama muuqaalka oo kale inaad ka dhigi karto screen oo kale si waxyaabahan effectiyada muuqaalka dushiisa usoo fuulaan, madowgana oo meesha uga baxo. waxaad tegaysaa meesha ku qoran tahay normal, waxaad dooranaysaa screen. casharka hore si fiican ugu soo sharaxnay. okay, hal mar muuqaalka aan play dhaho. weliga hays oranin haddaad san yeesho maxaa intaa markii aan sameyno marka waxaan ku daraynaa qoraalka waxyaabaha uu sheegayo sheekha qoraal ahaan oo kale inaan usoo muujino. okay, meeshaas oo ka bilaabanayo ayaan tegaynaa si oo calaamad oo noogu yeesho. waxaan sameynaynaa okay, waxaan leenahay split. weliga hays oranin meeshaasna waxaan leenahay split. waxaan leenahay split. haddaad san yeesho maxaa dadku ku oranaya asbaa lagu oran. okay, intaa markay marayno waxaan leenahay isagana split. okay, split isagana inaad ilaahay agtiisa nacas ka noqoto naar gasho split. iyo dadka agtooda inaad nacas ka noqoto kee ku roon.
okay muuqaalka sababta aan jarjarayna waxay tahay waxaan rabnaa qoraalka inaan ku cabirano sidaas darteed waxaan sameynaynaa marka text tag kadibna waxaan soo qaadanaa midka ay noogu qoran tahay default text waan soo jiideynaa waxaan keenaynaa okay calaamada meeshaas ii keen fiir marka hadda weligaa hays odhanin meeshaas noogu sin marka kanna qoraalka hore aan usoo diyaariyey waxaan sameynaa waa soo koobiyeynaa keliya koobi dheh kadibna dooro textiga meeshaas waxaa ku dhahdaa past si marka muuqaalkan ama qoraalkan si oo usoo muuqdo waxyar hoos aan usoo dejino fartaan bedeleynaa okay kanoo kale aan qaadanaynaa laakiin waxaan sameynaynaa qaybta spacingka ayaan kala sakinaynaa fartan sizekeeda wax yar noo weynay spacingka hal xaba ka jar okay farta waxaan u sameynaynaa background si ay usoo muuqato meesha ay noogu qoran horta strogna u yeelaynaa farta strog madow ha noo ahaado qaybtaana background tag backgroundka waxaan ka dhigaynaa midabkiisa waxaan ka dhigaynaa midabkaas gaduudka ah geesahan waxaan ka dhigaynaa round okay hal mar aan daarnaa mar weligaa hays odhanin waxaa kaloo u sameynaynaa qoraalka effect waxaan tegaynaa qaybta ay noogu qoran tahay animation kadibna waxaan ka dhigaynaa okay midkan typewriterkan isticmaalayna kabkaadka wuxuu ku shaqeeyaa mar walba internet u baahan yahay sidaa darteed qadka anaga xirnaa waa furay weligaa hays odhanin marka sidaasaan ku wadaynaa si aad u koobiyeysid qoraalka waxaad isticmaali kartaa aalta kadibna waad jiidaysaa qoraalka waxaan geenaynaa hadalka kale meesha uu ka bilaabanayo weligaa hays odhanin haddaad san yeesho maxaa adiga nuurkii eebe adiga ifiyey koonka rabbi baa koryeelay qadarka yaa imaam alambiyaai dadka oo idil dhammaantood adiga gaarsiiyey diinta adigaan kurmaynay adiga nuurkii eebe adiga ifiyey koonka rabbi baa koryeelay qadarka yaa imaam alambiyaai dadka oo idil dhammaantood adiga
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي weligaa ha is odhannin haddaad san yeesho maxaa dadku ku odhanaya waa nacas baa lagu odhan inaad ilaahay agtiisa nacas ka noqoto naar gasho iyo dadka agtooda inaad nacas ka noqoto kee kuu roon